بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونagsan daawadayaasha qiimaha qadarinta naga mudan ku soo dhawaada barnaamijka ara ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xarunta CID da magaalada Hargeysa waxay ugu yeedheen su'aal ay ku weydiinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Ali Maxamed Ali haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in yeeritaanka looga yeedhay CID da iyo xadiga la xiray uu ka dambeeyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ku eedeeyay qaab siyaasadeedsan uu xiray bal marka hore waxaan ku horan doonaa shirka jiraa'id agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Ali Maxamed Ali uu qabtay walaalayaal salaamantiin anigoo ah Ali Maxamed Ali agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxbarashada waxaan caawa saxaafadda isugu yeeray inay u gudbiyaan muwaadiniinta Soomaaliland hadal yar oo aan jeclaystay in aan caawa halka sheego intaan wax kale baan gelin marka horeysa waxaan rabaa inaan sheego nabaddu inay wax qaali ah tahay oo aad iyo aad u qiimo badan dad fara badan ay u soo dhinteen haddii la habadkeed leeyahay ayna keento deganaansho oo hadi goor horumarkan uu yahay waxaan anagu aan doonayno inaan gaadho nabaddu maaha wax la dhayarsado ama lagu khamaaro ama wax si qeyr macquul ah la'aanteeda loo isticmaalo iyadoo loogu talagalay inay dadka qaarkiisna ka faa'iidaystaan dadka qaarkiisna ay ku jabaan nabad la'aanta haddii aan idin soo qabsado muxuu ahaa tusaale ahaan ninkii Henry Kissinger la oran jiray oo ahaa madaxda sare ee dowladdii Nixon toddobaataneeyadii ayaa dadku waagii hore waxay u yaqaaneen nin aad iyo aad u caqli badan weli dad fara badan baa u haysta laakiin dad fara badan oo kaleeto anigu aan ku jiro ayaa waxay ku qanceen inuu yahay nin aad u caqli xun sababtoo ah isagoo tiisa ka fekeray soo tiisa uga fekeray waxay ahayd isagoo haddii la leeyahay PhD haysto lecturer university ayaa xisbigii mucaaradka ku ahaa xisbigii Nixon Republicanka xisbigii dimuqraadiga ah ayaa waxay u bogeen aaraadiisii fikradihiisii uga soo horjeeday dagaalkii Vietnam ee lagu go'ay aaraadiisii markay u bogeen isagii way u yimaadeen xisbigoodii ku dareen waxbay ugu ballan qaadeen isagoo halkiisii wataa ayuu haddana wuxuu ogaaday in sabkiisu ku weynaanayo qiimihiisa mustaqbalkiisuna ku sii weynaanayo haddii uu u wareego xisbigii xaakimka ah ee Nixon hadda maaha kii markii hore soo dhaweeyey waa kii kale oo maslaxadiisa ayay ka fikiray xisbiga xaakimka ah ee Nixon xisbigii dagaalka waday Vietnam buu ahaa isaguna wax kale ma sii qabanay dagaalkiibuu sii ballaariyey natiijada ka soo baxday waxay dhimasho aad iyo aad u fara badan iyo isagoo magaciisu uu weynaaday waxaa ka soo baxay kaleeto in shirkadaha sunta sameeya dagaalka iyo shirkadaha hubka dagaalka sameeyaaba iyana ay lacagna ay uga soo baxday ay kuna tijaabiyeen teknolojiyadii iyo waxay sameeyeen dad masaakiina oo labada dhinac 850 baa ku dhintay Mareykanka lamana xisaabin karo inta ku dhimatay Vietnamiinta haddii isweydiino markaa ninkan inuu caqli fiicnaa iyo inuu caqli xumaa dadka waxay u badanayaan inuu aad iyo aad u caqli xumaa waayo khasaaro u geystay ayaa wax kasta ka weynaa intaan haddaan ka imaado nabaddu waxay keentaa deganaansho aan horey ku yidhi waxay kaloo keentaa deganaanshaduna wuxuu keenaa horumar waana meesha ama barta Soomaali weyn ahadi goor ku xaasido Soomaaliland waayo nabad baa taala deganaansha taala horumarkiina waa inoo socda
dawlad kasta oo walaalahayna koonfureed u timaadaa waxay ka dhimataa nabadda iyo wanaagga iyo isjeclaanta muwaadiniinta Soomaaliland isjecel yihiin iyo deganaanshaha iyo horumarka lagu socdo hadda right now aynu joogno inagu United Nationskii adduunweynaha waxay noo arkaan inaynu joogno developmental stages yani heerkii horumarka iyaguna weli ay joogaan humanitarian states ama halkii macaawinka iyo bini'aadanimada taa weeyta laynoo diidan yahay waxaana laynoogu diidan yahay ilaahay baa inagu kala soocay nabadda iyo deganaanshaha ilaahay noo soocay iyadoo aad iyo aad weliba loogu soo dhintay Somaliland waa loo soo halgamay halgankuna ma ahayn mid keliya way badnaayeen mana dhammaan halganku waana soconaya ilaa inta dalka iyo dalka la horumarinayo mana dhammaan ilaa inta itiraaf la helayo mana dhammaan ilaa inta aynu adduunweynaha wax ku soo kordhinayo halgankii xadka lagaga soo gudbay oo dhiig u daatay oo lagu eriyey taliskii siyaad bare keliya ma ahayn waxaa jiray isna halgan kaleeto oo dhiig u soo daatay loo dhiigoon u daadinayay nabad in la helo oo ka soo bilaabmay gobolka Sanaag halganku hore waa intii sheegay waa halgan soconaya waa halgan cadowgiisu aad iyo aad u farbadanaya oo loo baahan yahay halgankaas hadii goor inuu mid socdo taama uu noqdo intaa markaan ka imaato xalay oo taariikhdu ahayd March 10-keedii amintuna ahayd 10-kii habeenimo ayaa waxaa isoo wacay telefoonka oo private number iga soo wacay CID-da xarunteeda waxaa laygu yidhi noo kaalay oo 10-kii habeenimo ku waxaa layidhi maya Khalid noo kaalay mas-uul qaran baan ahaa waan u tegey anigu gurigeyga joogaan guriga ka baxay waan tegey markaan galayna waxaa laygu eedeeyey dembiga isaga ah baaristiisii weli way socotaa waxaana laygula taliyey inaan ka hadlin waana iska soo bixi doontaa waxaan weydiiyey wax waalan ah ma jira maxkamadeed maya baa laygu yidhi agaasimo guud